maxaa ugu wacan ragga inay qariyaan dareenka jacayl ee ay u qabaan dumarka ama lamaanahooga, halka dumarka lagu yaqaano ku dhiirashada geesinimada leh iyo ka sheekaynta dareenka ay u qabaan ragga ama lamaanahooga. haddii aad rabto inaad wax ka ogaatid arrinkaas ama ay su-aashaadu sidaa tahay, fiidiyogan ila dhammayso. soo dhawow mar labaad. isla intaanu kula wadaagin arrimahaas, waxaan kaa codsanayaa inaad youtube-kayga iisoo siyaaratid, waayo waxaan soo dhigaa wax ka duwan waxyaabahan halkan soo dhigo ama ka faahfaahsan. waxaan kula wadaagi doonaa dhowr arrimood oo ugu wacan raggu inay qariyaan dareenkooga jacayl, halka dumarku ay jecel yihiin inay ka sheekeeyaan ama ay u macneeyaan jacaylkooga. waa ta koowaad, raggu waxay aaminsan yihiin ka sheekaynta dareemadu waxay kordhiyaan ama ay buunbuuniyaan mashaakilka laftiisa. inkastoo wax dhibaato ay ku haynin sheegashada ama qirashada ama ka sheekaynta jacaylka ama dareenka ay dareemayaan raggu, haddana waxay aaminsan yihiin guud ahaan dhibaato kasti haddii laga sheekeeyo inay sii buunbuuninayso isla dhibaatada. sidaa darteed waxay jecel yihiin inay ka aamusaan si ayna u siin balladh ka weyn intii hore ay dhibaatadu lahayd. waa ta labaad, badbaadinta raganimada iyo caafimaadkoogaba. waxa ay khibradu sheegeen marka uu dareemo raggu awood jacayl ama qallafsanaan ku wajahaan qalbigiisa, in cadaadiska dhiiggiisa uu kor u kaco, taasina ay u baahan tahay in uu halkiisii kusoo laamo, taas oo ka badan inta ay dumarku dareemaan. sidaa darteed raggu waxay jecel yihiin caafimaad ahaan inay aamusaan, ay ku cabiraan jacaylkooga aamusnaan. waa ta saddexaad, raggu waxay u arkaan in laga sheekeeyo dareemada ku wajahan qalbiga waqti lumis. si ka duwan dumarka ku raaxaysta ka sheekaynta waxa caqligooga ama maskaxdooda ka dhex guuxayo, raggu waxay u arkaan in laga sheekeeyo dareemada caqliga ama maskaxda ama qalbiga ka dhex guuxayo inay tahay waqti lumis amaba loo baahnayn in laga sheekeeyo. waa ta afraad, tala saarashada fariimaha indhaha. sida ay khabaradu sheegeen in raggu u baahan yihiin meel aamin ah ama lagu kalsoonaan karo si ay uga sheekeeyaan dareemadooda ama jacaylka ay qof u qabaan. taasina waxay u baahan tahay waqti si loo helo meel aamin ah oo looga sheekayn karo dareenada kama dambaynta ah ee loo qabo. ugu dambayntiina, aad ayaad u mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. haddii aad u arkaysid inaan u qalmo ama ay munaasib tahay inaad subscribe iisoo saartid youtube-ka, aad ayaan kaaga mahad celinayaa. iisoo saar walaal adoo mahadsan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.